way soo dhawaad horta afar maalin ka dhiman doorashada Mareykanka maanta barnaamijkan xiisu leeyahay waxa xoog saareenaa Trump muxuu yahay qorshaha uga dhigan ciyaalka darbi ka bood Soomaalida Mareykanka joogta iyo taageersiin ma Trump taageersiin mis islaamta asaga la tartamaysa taageersiin horta waxa soo dhan in siyaasadda Soomaaliya uga dhigan oo qorshe waxa soo dhan Trump maadaama ay u muuqato in hadeertan dhibcaha asaga uu ku horeeyo macquul ay tahay inuu madaxweynaha soo socdo Mareykanka noqdo waxa ku hormarayna kaftan yar Trump maalmihii la soo dhaafay dhibco fara badan oo ka qaatay ninka la yiraahdo oo waliba offside ah ninka la yiraahdo Biden waa iska oday macluul ah oo wuxuu ka hadlay wixii kale kala gasay maaldahaas Biden intuu meel soo fariistay wuxuu ku tilmaamay taageerayaasha Trump oo markii Mareykanka laba loo qaybiyo 350 milyan lagu sheegay Mareykanka dhan markii laba loo qaybiyo qayb kamid ah Trump taageersiin marka Biden wuxuu ku tilmaamay inay yihiin garbage qashin wuxuu dhahay qof alaale qofka Donald Trump taageero waa qashin markuu dhahay Trump ha baxee gawaaridan waaweynka qashinka qaado darawal ha ka noqdo soorkaas u jeedaan warriga waa shactro fursadii banooni yar oo loo soo baasay oo Biden uu soo dhigay uu ka faa'iideystay gool uu ka dhalibano dalaq marka sidaas darteed hal gool wataa Trump maaldahaas sidoo kale dhibco qaatay wuxuu dhibco ku qaatay dalka Mareykanka waxa ka jira meel loo yaqaan fast food meel yar oo hamburger iyo qashinkaas lagu cunaaday Trump ha baxay cavalier ha noqdo cavalier uu noqday Mareykanka waxa ka jira loo yaqaan drive through gaariga adoo weelkid cunto dalbane saaxiibka asaab dadka ka gidaayo no asaamina adiga almuhim marka nin wuxuu noqday ummadii dhaxgalay iska dhaxbooday caruurtu iska dhaxboodaa dumarku iska dhaxboodaa nin wuxuu noqday dadkii dhaxgalay gabadhan kale hadda asaga la tartamayso ayada xogaa yar luuqu gashtay oo uu ka hadal badiyay uu ka shactiri badiyay uu ka furfurnaan badiyay sidaas awgeed dhibco fara badan oo wataa dib ugu soo laabano maxay tahay meelaha Soomaalida ay ka jecel yihiin Trump meelaha ka jecelnahay ninkaas iyo meelaha ka necebnahay jirto haddaan nahay Soomaalida Mareykanka joogto meelaha ka jecelnahay idinku bilaawaa horta ugu horeen Trump halka meel ka jecelnahay waa qadiyada ninkaas sida Soomaalida oo kale waxoogaa qadiyada ku weyn yani xoogaa ma baahaba ku weyn asaga mar alaale markuu hadlo Mareykan wuxuu ku leeyahay waa lambar 1 oo yani wuxuu ka wadaa lambar 1 dunida kama wado wuxuu ka wadaa anaga ruush in aan la dagaalno ma rabno dhaqaalihii ay gelin lahayn NATO lacagtii xagga naga gashay iyo ciidamada adduunka noo kala joogo hala soo celiyo ku leeyahay asaga oo dalkan xoog hala saaro buundooyinka Mareykanka hala dhiso isbitaalada hala casriyeeyo dalka ha noqdo dal laga yaabo asaga ku leh ileen Mareykanka maanta markay fiiriso dhaqaale fara badan iyo lacag fara badan meel maala yani uu geliya Djibouti lacag badan Ruusiya maxaa dhigi jiray NATO hadda Ukraine lacag iskaga wadaa hub iskaga wadaa Ruushna waa la jabin la yahay maalin kadib Ruush meel qabsana marka dhankaas qadiida Soomaalida xogaa ninkan ku taageersan tahay oo Mareykan afaaraha dadka dadoo ka bax meelaha aad ordaysid ka soo laabo ciidankaada dalkan keen waxa dhisaysid iyo wixii dakhli ee meeshan ha laga taajiro qof walba billionaire ha noqdo Mareykan gudiis Trump marka hortaas uu leenayaa taas waa mid meesha labaad ku jecelna idin sheegaa Trump wuxuu aad u neceb yahay Soomaalida intooda badan oo neceb yihiin ogaada Trump waa nin neceb mashruucan qoomuluudka hadda مثلا qoomuluudku wuxuu aad ugu badan yahay waxyaabaha yaab kale oo xisaabta isku dhufsami karin ay ka mid tahay qoomuluudku wuxuu ku badan yahay gobolada Soomaalida ee degto Minnesota u badan Seattle u badan Ohio iyo meelaha Soomaalida ee degto dhan soo sheeg saas waay hadda gabadhan Soomaalida ee quruxda badan ee xijaabkooda to ee muslimada fasalka ay fadhiso waxa garabka ka fadhiyo wiil gabadh ahaan ama gabadh wiil ahaan jirtay adig way isbedelaano naasuu yeelanaya dabu deysana magacii wiilka uu iska bedelaa magac gabadh la baxa marka dhibkaas Trump uu neceb yahay arrinkaas wuxuu ku leeyahay barnaamijkan qoomuluudka dadkii ayuu lugooyay oo jiljileec ka dhigay qaabdarro ka dhigay waxaas hala joojiyo marka waa nin ay u qorsheysan tahay inuu xoog saaro in waxaas oo dhan la joojiyo gabigeedaba Soomaalida marka laga reebo kuwa iska dimuqraadiyiinta daba ordo lacagta jeebka loo geliyo Soomaalida laakiin inteeda badan qadiyada iyo diinta iyo dhaqanka uu ku weyn yahay way taageersiin Trump ana had idin sheegay waxa artiin idinka dhax horta labadaas meel ninkaas odayga waa meelaha ay Soomaalida ka taageersiin meelaha ku necebnahay ku sheega marka meelaha ku necebnahay waa Yuhuudda uu jecel yahay Netanyahu uu daba orda waa ninkii ku dhahay Israa'iil meel Mareykanka adduunka oo dhan waa laga yaabaa ciidankayga inaan ka soo saaro oo hubkayga iyo lacagta ka soo saaro laakiin Israa'iil uu dhahay weligan waa la jireena yani
qacdi iyo qubta uu wada Netanyahu Trump wuxuu rabaa inuu garab istaago ilan Israa'iil lagu sheegay Mareykanka samaystay marka Trumpane kulley wuxuu daba dhilif u yahay Netanyahu yani Trump Netanyahu waa wato dhanka Yuhuudda markii la fiiriyo dagaalada socday waxaas hadda ka hor xitaa watii Trump uu tegay Jerusalem safaaradii xagga loo rabo dhahay Mareykanka derbigo madax ay saartaan Yuhuudane wuu tegay wuu soo simay taas waa taas midda kale Soomaalida Trump ay ku neceb tahay ay idin sheegaan waa arrimaha qaxootiga iyo derbi kabood ninka Trump waxa u dhigan jadwal aad iyo aad u culus inuu isticmaali doono dhammaan hay'adaha amniga oo ay kamid yihiin qoladan DHS loo yaqaano qoladan ICE loo yaqaano xitaa booliiska federaalka ah iyo kuwa state si loo soo qabto loo musaafuriyo dhalinyaro derbiga kasoo booday ilaa hadda sharci raadiska ah oo qorshe asaga afkiiska sheegay mass deportation sameynaa dhahay waxaa kaloo u qorsheysan safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Washington DC in Trump uu heshiis la galo si loo dhaho nabada ka dhalatay Soomaaliya magaalada Muqdisho waa amni al-shabaab kama jiro sidaas awgeed qof alaali qofkii derbiga kasoo booday ee dhalinyaro ah Soomaali ah ee Mareykanka jooga hala musaafuriyo qorshahaasna Trump wuu u dhigan yahay in dowladda Soomaaliya uu leeshiyo waa u dhigan yahay laakiin arrimaha geeska Afrika Soomaaliya markaa fiirisid wuxuu u janjeeraa xoogaa inuu yani u muuqataa inuu u janjeero inuu aqoonsado ama aqoonsan doono Somaliland Trump taasa u dhigan inay hor noqon doonto inay been noqon doonto waxaas aniga ma ogeyn laakiin almuhim intaas rabay inaan idin sheego qaarta Trump 4 maalin kadib kulley haddaysan arrin kale dhicin laakiin ninkaas dhibcaha maanta asaga ku horeeyo aniga cidda u vote gareena idima sheegay anaarti muuqaalkii inay qaqaayitiin meel la ordimiya laakiin Trump gabadhan asaga la tartamayso Kamala Harris dhiiqay ku jirtaa dhiiq wuxuu ku jirtaa si uga bixi lahayd 4 maalin soo socoto kulley ayada u taala laakiin Trump waa majixin ninkaas tarinkiisa fariin male